السلام عليكم صاحبي halkani waa Caasim Media ku soo dhawo channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe hadii aad hore inoo joogtay fadlan muuqaalkani like saar ku soo dhawo muuqaalka oo dhameystiran marka laga yimaado xishoodka rabbaaniga ah ee ku abuuran dumarka hadana dumarku ma ahan kuwa noqdo qofka ugu horeeya ee sheegta jaceylka ay u qabaan ragga inta badan xiriirka jaceylka ragga ayaa ah kuwa ugu horeeya ee dumarka u sheegta halka ay dumarku noqdaan kuwa aqbala ama diida jaceylka haddaba sababtu maxay tahay sababta koowaad ayaa waxa ay tahay gabadhu in ay ka baqayso wiilka ay jeceshahay waxa shaki ku jireen dumarku in ay ka qalbi jilcan yihiin ragga oo ay ka naxariis badan yihiin gabadhu haday wiilka u sheegato jaceylka ay u qabto waxay ka baqaysaa inuu ka diido ama se uu ku daadiyo taasi oo dhaawac u keenaysa dareenka jaceylka ah oo ay u qabto isla markaana gabadhu waxay doorbidaa in ay sugto inta uu jeclaanayo isaga balse kama maqna dareensiin ay wiilku dareensiinayso inuu qalbigeeda uu soo jiro dhankiisa sababta labaad ayaa waxa ay tahay gabadha waxay ka walwashaa wiilka ay jeceshahay inuu leeyahay jaceyl kale taasoo keenta inay muddo badan jaceylkeeda qarsato aakhirkiina walwalkaasi wuxuu sababaa inay gabadhu noqoto mid ku mashquushay inay raadiso xogta wiilka ay jeceshahay sababta saddexaad ayaa waxa ay tahay xishoodku waa sababta ugu muhiimsan ee kalifta inay dumarku qariyaan jaceylkooda waayo dareenka xishoodka ah ee gabadhu ma ahan mid aqbala inuu nin hor istaago kadibna jaceyl u sheegto